بسم الله الرحمن الرحيم. maanta taariikhdu tahay 15 bisha Oktoobar sanadka 2017 xarunta guddiga doorashooyinka Puntland ku meel gaarka ah ee Tibet Garowe waxaan saxaafadda la wadaagaynaa war saxaafadeed ku aadan kordhinta muddada diiwaangelinta ururada siyaasadda Puntland. anigu Liban Saalax Maxamuud waxaan rabaa inaan akhriyo war saxaafadeedkii loogu talagalay maantay ama ciwaankiisu ahaa kordhinta muddada diiwaangelinta ururada siyaasadda Puntland. dowladda Puntland waxa ay qaadatay nidaamka xisbiyada badan waxaana horey loogu qoondeeyay in lagu diiwaangeliyo ururada siyaasadda Puntland waqti cayiman. maadaama waqtigii horey loo qabtay uu dhamaaday waxaan maanta idinla wadaagaynaa war saxaafadeed ku aadan kordhinta muddada diiwaangelinta ururada siyaasadda Puntland. guddiga doorashooyinka ku meel gaarka ah ee Puntland isagoo tixgelinaya baahida loo qabo hirgelinta nidaamka xisbiyada badan wuxuu fursad siinayaa dadka leh himilooyinka siyaasadeed. guddiga doorashooyinka ku meel gaarka ah wuxuu isla qaatay in la kordhiyo muddada diiwaangelinta ururada siyaasadda Puntland. haddaba laga bilaabo maanta oo ay taariikhdu tahay 15 Oktoobar 2017 guddiga doorashooyinka Puntland wuxuu kordhiyay muddadii diiwaangelinta ururada siyaasadda Puntland taas oo laga dhigay waqtiga laga bilaabo 15 Oktoobar 2017 oo maanta ah kuna eeg 31 Diseembar 2017 oo bisha ugu dambaysa sanadkan. haddaba si looga gudbo nidaamka qabaliga ah looguna gudbo nidaamka xisbiyada badan ee Puntland waxaan ku boorinaynaa siyaasiyiinta iyo dhammaanba qaybaha kale ee bulshada reer Puntland inay furtaan ururada siyaasadda si aynu uga guurno nidaamka qabaliga ah uguna tilaabsano doorasho hal qof iyo hal cod. ugu dambeyntii waxa aan idinla wadaagaynaa in ilaa iyo hadda lagu dhawaaqay urur siyaasadeedkii ugu horeeyay haddana ay jiraan kuwa kale oo soo socda si ay u noqdaan ururo siyaasadeed. sidaa darteed waxa aanu mar kale fursad siinaynaa cid kasta oo danaynaysa furashada ururo siyaasadeed laga bilaabo 15 Oktoobar 2017 ilaa 31 Diseembar 2017. guddiga doorashooyinka ku meel gaarka ah ee Puntland waxa uu mar kale bulshada Puntland ugu yeerayaa in qof kasta uu qaato doorkiisa ku aadan in Puntland ay ka hirgasho nidaamka xisbiyada badan ee Puntland. waxaa ku saxan gudoomiye ku-xigeenka guddiga doorashooyinka Puntland mudane Maxamuud Soofi Xasan. aad iyo aad baad u mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaad. waxaan haddana ku soo dhaweynayaa gudoomiye ku-xigeenka guddiga mudane Maxamuud Soofi Xasan mudane ku soo dhaweey. بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدا أو حقيقة آخرية وحنو ما أنت لو داعينا إن أنا مركلة كردني مدة ديوانجلينتا ورد السياسية تاسو أنا أرجعني باهل لو باهي هاي إن بشدو أي أبا هنتي ندام كا إن يكمل دالسو. ما دام أي بشدو قاستين ندام كاس حسبية بدنا أو هلقف هالعط waxaanu siinaynaa fursad cid kasta oo danaynaysa ama himilo siyaasadeed leh inay aanay fursad ku filan ay u hesho hawsha ayada ah. taasaana kaliftay inaanu mar kale kordhino muddadii diiwaangelinta ururada siyaasadda. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.